اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلهي سبحانه وتعالى آيات قرآن كسورة التوبة آيات كوبيو كنتونات وكي لها لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. marka kolley ummadda reer Djibouti meel kastoo joogtiin dalka iyo dibaddaba wixii aad maqasheen aad ka dhareegteen kuma soo noqonayo laakiin afar kelmadood ayaan ka odhan hadduu ilaahay yidhaahdo mid Ismaaciil Cumar Geelle baan odhani, mid waxaan odhani xaaskiisa, mid waxaan odhani carruurtiisa, midna waxaan odhani shacabka jamhuuriyadda Djibouti ayaan odhanayaa. waxaa la yidhi ninkaana quusanin isagaa quusa. annaku waa horaan quusanay, dadka caqliga leh, dadka cilmiga u saaxiibka, dadka garaadkali waa horay quusteen inuu Ismaaciil Cumar Geelle uuna jirin, laakiin intaanan weli quusanin waa ay ku quusteenoo hadalladii aad maqasheen ee baraha bulshada la soo geliyey radio Bukaaca la soo geliyey runtii waad wada maqasheen. isagu waxyaabahan jecelahay inaan taabto waxaa ka mid ah aabbahay buu qabriga kala soo baxay, allah u naxariistee. waa nasiib darro weeyaan, nin le madax baan ahay, nin le dal baan maamulaa, nin le maad aragtay ummaddan baan hoggaankeygii ahay. waxaan ognahay inuu isagu hoggaankii ahayn, waxaan ognahay oon ogaanay waa hore inuu isagu uunan madax ahayn, inuu caytama uu yidhaahdo aabbihii wase inuu yidhaahdo waxay ku tusaysaa halka uu joogo iyo inuu nin tegan yahay bay ku tusaysaa. marka waxaan leeyahay rasaasta aad sheegaysid alxamdulillaah, ilaahay waa kaa ku khashifay, ilaahay waa kaa kala daadiyey wax alla waxaad maaganayd oo dhan. dee waxaas wax naga cabsiinaya maaha, cabsida waan naqaanaa waxa ay ka dhigan tahay, cilmigeygana waan barannay alxamdulillaah, ilaahayna uuna baray. marka wax alla waxaad doontid haddaad samaysid haba yaraatee naguma soo dhici kartid, nagamana cabsiin kartid. hawshayaduna iyo halgankayaga iyo dadkayaga iyo dalkayaga waxa aan u xambaarsannahay iyo barnaamijka aan u wadno iyo madax bannaanida aan u wadno iyo gobonnimada aan u wadno haba yaraatee wax hor joogsan karaya ma jiro. oo waxa aan ku leenahay hooy wayka haddana wayka warwaaleeyo warmeena washo xaaskiisana mid baan odhanayaa. anigu xaas baan leehay, weligii xaaskiisana ma aflagaadaynin mana alyadaynin, carruurtiisana carruur baan leehay, weligay ma aflagaadaynin, weligay ma alyadaynin. isaga waxaan xasuusinayaa dadweynaha reer Djibouti in carruurtayda uu cunaha qabtay, inuu xaaskayga uu cunaha qabtay, oo maanta dalka ay ka maqan yihiin. maxay u maqan yihiin? waa markuu cunaha qabtay. ooridayda oo macallimada habeen iyo dharaar buu weeryanayay, uu meermeerinayey, oo kolba meel buu ka tuurayay oo maskaxduu ka dilayay. laakiin wixii uu isagu sameeyey annaku xaashaa lilaah, haweenka iyo carruurtu waa birimageydo oo ma taabanno. 3 sannadood buu baasboorkayga haystay si aanan isku arag haweenaydayda, si aanan isku arag carruurtayda. isagu halkaa buu taagan yahay, weli annaku carruurtiisa iyo awridiisana maanu taaban, mana taabanno oo waa birimageydo. haddana wayka warwaaleeyo warmeena washo midna waxaan odhani shacabka jamhuuriyadda Djibouti baan odhani hadduu ilaahay yidhaahdo, dalka iyo dibaddaba gebigiinba. runtii waxaan jeclaa inaan nii mahadnaqo, waayo waxaan arkay oon maanta dareemay gurmadkiinna, waxa aan dareemay isgarabtaaggiinna, waxa aan dareemay inaad garab joogtiin ayaan dareemay, waxa aan dareemay dhalinyar hooyo
aabbo iyo wiil cid walba oo i garab joogta telefoonkaygii waa aan qaban kari waayey boqolaal qof oo kula soo xidhiidhaya niyadda kuu dhisaya kuu sheegaya inay ku garab joogaan aad baad u mahadsantihiin waxaan aniguna maanta niigu celinayaa mar kale niina caddaynayaa in shaqadii layga eryey ay waxba iga qaadi weyday baasboorkaygii la qaatay waxba ay iga qaadi weyday meerkii aan ka tegey waxba ay iga qaadi weyday in dib wixii lay geystay uu ka mid ahaa xadhiggii gabood la geeyey uu waxba iga qaadi weyday dhimashana iyo dil la qorsheeyina haba yaraatee waxba igama qaadaya mana joojinayo ilaa inta aan guulaysanayno ka guulaysanayno taliska mucangaga adduunya God.